walaashaada iyo xaaskaaga magaalada aadeen dambi ay soo galeen qof ay soo dileen hooyada iyo caruurtaada guriga joogaan waxa lagu dhahay mid kamid ah xabsi daayin noqonaysa tee xabsiga u diray galeen qof ay dileen hooyada iyo caruurta guriga joogaan waxa lagu dhahay mid kamid ah xabsi daayin noqonaysa maadaama hal dambi ay soo wada galeen tee xabsiga أنا قليل حبسي وحدي لها الله أقوله لبضة مت كم أنا قليل حبسي ما أنا قليل لها وحدي لها أي غلط بس هنا بتي مسوالنا مساعدة ولا هذا مت كم إذا حبسي عادي سو تيوال الربعين أسكاج يولاش هذا مقالة عادين دمبي بيسوق على قف يسود اللي يسكت دمبي يقلين قولي وحاجة تعرورت هذا وحاسك كل شيء هو يدا أسكر قولي ما ده وحل هاي لبولاش أي حاسك دمبي بيسوق على مت كم إذا وين حبسي داين نقطة تيسو صار لحبسي داين والله سؤال لقى جوابي كرمو ما هي اسكت هيا ولا شيء يحاس كيجا والله بنروحوا إيه مارته هل دمبي هل كي دمبي مارته ما لا بد بحال لقى ديان ديلا ما هي ما بالأقل هل متبال الروا وين هل كم يسوس هيا سؤال كلام يا برامج كديس كانسل تي في magacaygu waa Cabdiqaadir Duulane Cabdiqaadir oo soo dhaweynaya su'aasha ugu horeysa ku weydiinayo walaashaada iyo xaaskaaga magaalada soo aadeen dambi ay soo galeen qof ay soo dileen guriga hooyada ay caruurteeda joogta ama caruurtaadi wax askar baa imaadey waxa lagu dhahay walaashaada dambi ay soo galeen qof ay soo dileen mid kamid ah xabsi daay noqonaysa tee xabsiga u diray walaashi iyo xaas aniga walaashi xaaskigan le algurida xabsiga soo hadee walaashi waa meel la tee saanta adima dirtee ilmihiina ilmahay waa kursanayaan ana haysanay ayada xabsiga soo xulcabisa wal TV magacaaga عبد الله حسن my friend عبد الله حسن xaaskaaga iyo walaashaada magaalada aadeen dambi bay soo galeen qof ay soo dileen isku dambi ay galeen guriga waxa joogta caruurtaada oo xaaskaaga ku dhashay iyo hooyada askara guriga imaade waxa la dhahay laba walaasha iyo xaaskaaga dambi bay soo galeen mid kamid ah weyn xabsi daayin noqoto tee soo saar la xabsi daayin والله سؤال لقى جوابي كرمو ما هي اسكت هيا ولا شيء يحاس كيجا والله بنروحوا إيه مارته هل دمبي هل كي دمبي مارته mid ba xabsi daayin noqonaysa ما لا بد بحال لقى ديان ديلا ما هي ما بالأقل هل مت بال الروا وين هل كم يسوس هيا سؤال كلام وسؤال إنكار من أنك جواب مرة ما هي اسكت فيري ما يلزق ما دقيقة كرداس سبب حوي هذا حاس كذا أنا لا بدي لو كريمينال مارته جوده هلا جليو كريمينال لا هذا لو والله مدينة لسه أسكرت واحد المو بحياة ما قرأ هذا متسوسان سواحد قرأتمه مركا والله أرنت سوارين كار ما مدو إلما هو يودنا لما دي كرو إسكا حرنات ولا شيء لما دي كرو مركا ومارته أدوك تيابا يا ما يكون كوري حداد كفر سوى كوكود على تود لا بد بس الحران ديلا ما هي لما كل الريبي كرو حدان حاس كربتو علي حاس كي سوي شيء دان ولا شيء ربتنو علي ولا شيء سوي حاس يسوي نعبي وحاجة برامج كديس كانسل تي في magacaygu waa Cabdullaahi oo ku magac dheeray Daalo walaashaada iyo xaaskaaga magaalada aadeen dambi ay soo galeen waxay dileen qof ay soo dileen labadooda isku dambi ay soo galeen samahan guriga waxa joogta caruurtaada iyo hooyada waxa ku yimaadeen askar ay guriga yimaadeen waxa lagu dhahay dambi ay galeen mid kamid ah marka xabsi daayin noqonaysa ma xaaskaaga xabsi daayin ka dhigay mise walaasha mid soo saaraan xaaskeyga ka dhigi lahay sabab waayo walaashay waa ila dhalata mar walba dhiigeyga waa maano meiga foged wuxuu ku leeyahay aabo hooyaha naga xir way kula joogaan walaasheeda korinaysa maano xaas kale waa heli karaa xaas kale soo guursana ciyaalka korinaysa marka waxa leedahay iyada xabsi daayin ka dhigi lahay xabsiga iyada u diri lahay okay Faisal Maxamed Jaamac Faisal oo ku soo dhaweynaya su'aasha ugu horeysa walaashaada iyo xaaskaaga ba magaalada aadeen dambi ay soo galeen qof ay soo dileen gurigii boolis baa yimid mise askar baa timi waxa la dhahay labadooda mid kamid ah xabsi daayin noqonaysa guriga waxa joogta hooyada iyo caruurtaada tee xabsi daayin ka dhigi la soo saar walaashii soo xaaskii waa jeclahay dismaa walaasha waxa xabsi daayin ka dhigi ilma ay haysaa deeqa waa ka marka hooyana ay ku leedahay gabadheeda hayga xidhmaan oo guriga joogta adiga waa labadaba lama samayn kara laakiin waa mid haddii danta qabato qofkii ilma haystaa la xurmaynaya xogaa marka xaaska walaasha xabsiga u diri lahayd waa hagaag kugu soo dhaweynaya barnaamijka kadis cancel TV magacayga Bilal idaa Bilal ku soo dhaweynaya kalan ku weydiinayo walaashaada iyo xaaskaaga magaalada aaday dambi ay soo galeen qof ay soo dileen guriga waxa jooga ilmahaaga iyo hooyada askar baa timi waxa lagu dhahay xaaskaaga ama walaasha mid kamid ah xabsi daayin noqonaysa tee xabsi daayin ka dhigi la soo saar iyo walaasha mid ba xabsi daayin noqonaysa maadaama isku dambi ay soo galeen ha tee xabsi soo saar والله قفك الدنبيجا قال حبس ما يلا بدو هو وضع قالين دنبيجا مت كم إذا مركل روين حبس داينو
hooyaday ma galaysa maya walaashaa iyo xaaskaaga walaashay xaaskayga gale sababtoo bila sabab la'aan hooyaday oo intaasoo bilo caloosha igu soo waday naag shalay aan bartay kama doorsanay caruurteeda anaa u jooga maya hooyaday iyo xaaskayga ana hooyaday doorana maya hooyadu kuma jirto meesha waa walaashaada iyo xaaskaagaan ku dhahay maya walaashaa gudaha dhiga waa bila sabab ilmaha ay kornaadii walaashay islaanta gudaha aa dhigo marka walaasha xabsiga u diray iyada u diraa ansal tv magacaaga magacayga waxaa la yidhaha cabdiqaasin waxa weeyaan su-aasha kale ugu horreysa aan ku weydiinayo walaashaada kula dhalatay iyo xaaskaaga baa magaalada aadeen dambiga soo galeen qofay soo dileen adoo guriga joogtay guriga waxa kula jooga hooyada iyo ilmahaaga askar baa kuu timi waxay ku dhaheen walaashaa iyo xaaskaaga qofay soo dileen mid ka mid ah xabsidaayin noqonaysa midda xabsidaayin noqonaysa waa inaad soo saartid ma xaaskaagaa soo saari lahayd oo ilmahaaga ay ku leeyihin aaba hooyada ha naga wadin hooyana ay ku leedahay maandhow gabadheeda yaa layga xidhin maxaad samayn lahayd maya walaashay baan badbaadin lahaa waayo sababta walaashay dee walaashay ila dhalatay xaaskana waa xaaskii oo dee naag waa caruur bay dhashay caruurta aniga waa korsan karaa dhib ma laha iyada unbaa xabsidaayin noqon lahayd ma garatay laakiin walaashay mar walba xabsidaayin ma suurtagashay laakiin walaashay may kama dhigi kareen walaashay hooyaday dhashay iyo aabbahay dhaleen oo adkaan lahayd ama booskooda anaa labadooda geli lahaa waa hagaag barnaamijka kadiska ansal tv magacaaga maxamed ali dhahaa maxamed cabdi waa ku soo dhaweynayaa ee su-aashaaskaaga iyo walaashaada magaalada aadeen dambiyay soo galeen qofay soo dileen gurigii markay ku soo laabteen askar baa gurigii timi askartii waxay dhaheen labadan qof dambiyay galeen mid ka mid ah xabsidaayin noqonaysa guriga ilmahaaga iyo xaaskaaga waa joogta tee soo saari xabsidaayin ka dhig xabsidaayin anaa gala maba la ogolo labadooda mid ka mid ah labadood aan siinayaa aaskayga aan siinaa maxaa sabab haaskayga qaladka walaashay labadu way wada galeen dambiga labadoo wada galeen hal la rabaa meesha hal baa la rabaa markayna xabsidaayin noqoto waa naagteedaan siinaa maxaad u siinay walaashayda siinaa caruurtaadiina hooyadooda caruurteeda anaa u jooga maxaa hooyadeeda u dhiibay waxaa leedahay iyadaa soo cunta waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka kadiska ansal tv magacaaga abubakar maxamed abubakar waa ku soo dhaweynayaa su-aasha kale ku weydiinayo walaashaada iyo xaaskaaga magaalada soo aadeen qof bay soo dileen hal dambiyay soo galeen guriga adoo joogtid hooyada iyo carruurtii baa lagu yimi xaaskaaga waxaa la dhahay mid ka mid a xabsidaayin noqonaysa maadaama ay hal dambi wada galeen teed xabsiga u diray xaaskayga maxaad ugu diray dee walaashii dhib mala carruurtii anaa korsan kara laakiin walaashii meel aan ugu go'ay mana soo dhiiggayga waay waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka kadiska ansal tv magacaaga cabdifataax waa ku soo dhaweynayaa su-aal walaasha iyo xaaskaaga baa magaalada soo aaday dambi bay galeen qofay soo dileen guriga adoo joogtay hooyada iyo carruurtii baa lagu yimi waxaa lagu dhahay niyahow mid ka mid ah xabsidaayin noqonaysaa teed xabsiga carruurtii aa dhalay xaaskaa dhalay mise xaas kale maya dee xaaskaaga ku dhashay aniga walaashaan gelin lahaa walaasha xabsidaayin u diri lahay sabab haddee qoys kalaan bilaababa dee aniga xaaskeedii ilmaheeda isla joogna marka iyada walaasha waa bixleeda waa hagaag mid ku soo dhaweynayaa barnaamijka kadiska ansal tv magacaaga maxamed cali oo ku soo dhaweynaya xaaskaaga iyo walaashaa magaalada yimi dambi bay galeen qofay dileen hooyada iyo carruurta guriga joogaan waxaa lagu dhahay mid ka mid a xabsidaayin noqonaysa maadaama hal dambi ay soo wada galeen teed xabsiga anaa geli lahaa xabsiga waxaan dhihi lahaa ma la ogolaa labadooda mid ka mid ah anaa geli lahaa xabsiga anaa geli lahaa waxaan dhihi lahaa ayagaan la fasaxanay inaabti maswaalaynaa masacada wada hadlaynaa mid ka mid ah xabsi aadayso teebaa la rabaa fadlan islaanta haddee walaashay intee ku taallaa horta walaashay horta ta iyada xabsiga aadaysa soo dhaweynayaa barnaamijka kadiska ansal tv magacaygu wax maxamed raagi waa xaaskaaga iyo walaashaaba waxay soo aadeen magaalada dambiyay galeen hooyada iyo carruurtiina gurigiiba joogaan booliskii baa kuu yimi ama askartii waxaa lagu dhahay mid ka mid a xabsidaayin noqonaysa tee xabsiga u dira xaaskayga xabs u diraa maxaad haddee walaashay lemeela maxaa xaas waa lilayla marka iyada dhihi la carruurtiina guriga joogaan ku dhahay aaba hooya naga xirin carruurta waan korsan lahaa anaa korsan lahaa aadaya barnaamijka kadiska ansal tv magacaaga waa cabdulaahi nimcaan kalsan tv salaamay dhammaan waa ku soo dhawaasha iyo xaaskaaga magaalada soo aadeen qof bay dileen
gurigana hooyada iyo waxaa joogaan carruurtaadii waxaa la dhahay mid ka mid ah xabsi gelaysa maadaama ay hal dambi wada galeen tee xabsiga u diri lahayd walaashaan u diri lahaa si ilmaha uga sii qabto ayadoo u diri lahayd xabsiga xaaskayga u diri lahaa si ilmaha uga sii haya xaaska u diri lahayd xabsiga sabab haddee walaashay moogta faamil kaleetay ku tiirsan tahay ani maadaama aan faamil ahay oo aan ka soo bixi karo ilmahayga iyo arrimahooda islaanta xabsi aad weyn waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka kadis cancel tv magaca axmed xabiib baa la yidhaha aniga axmed xabiib oo ku soo dhaweynaya inta kale ku weydiinaya walaashaada iyo xaaskaaga magaalada aadeen dambi ay soo galeen qof ay soo dileen hooyada iyo carruurtaada guriga joogaan waxaa lagu dhahay mid ka mid ah xabsi daayin noqonaysa tee xabsiga u dir walaashay baan xiri lahaa maxaad ugu dir waxaan u xiri lahaa ilmahayga daran ilmahayga walaashay ka daran hooya guriga joogta waxay ku leedahay iga dirin gabadha hooyaday islaantayda haynaysa islaantaydaan soo dayn lahaa walaashay baan xiri lahaa sababtoo ah hooyaday iyo ilmahayga islaantayda hayn lahayd barnaamijka kadis cancel tv magacayga waa cabdulaahi cumar cabdulaahi waa ku soo dhaweynayaa su-aasha ugu horreysa xaaskaaga iyo walaashaada magaalada soo aadeen mid dembi bay galeen qof ay soo dileen askar boolis baa guriga yimi waxaa la dhahay walaashaa mise xaaskaaga mid ka mid ah xabsidaayin noqonaysa tee xabsiga u dira walaasha iyo xaaskaaga carruurtii gurigana waxaa jooga hooyada iyo carruurta bismillah laakiin su-aashaas waa adagtee maya mid baa la rabaa in xabsiga u dira labadooda wallaahi su-aashaas way ugu adagtay maya mid ka mid a adkaa lama rabo mid ka mid a la rabaa inaad labadoodaba maya ma la rabo hal mid ka mid a la rabaa inaad soo saartid oo xabsiga u dira qof laguma bedeli kar miya okay hee walaashayda iyo xaaskayga yaa soo horreey maya adigu mid xaaskaygaan u diri lahaa ayadaa fududno isha kale ku weydiinaya xaaskaaga iyo walaashaba magaalada soo aadeen qof ay soo dileen hal dambiye galeen guriga hooyada iyo carruurtii baa joogaan waxaa lagu dhahay mid ka mid a xabsiga loo diraya tee u dir islaanta u diri lahaa maxaad ugu dir islaam waa badanta oo guursanaa maxaa laakiin walaasha carruurtiina carruurta dhima lahaa walaasha u dhiibi lahaa okay tan dhaweynayaa barnaamijka kadis cancel tv magacayga waa maxamed cabdi aadan maxamed oo ku soo dhaweynayaa walaashaada iyo xaaskaaga magaalada soo aaday dambiyay soo galeen qof ay soo dileen guriga hooyadaabaa joogta iyo walaasha carruurtaadii waxaa lagu dhahay askarta markii ku yimaada mid baa xabsidaayin noqonaysaa tee xabsidaayin u dir xabsidaayin waxaan gelin lahaa walaashay sabab dee walaashay aniga waxba ima tabcin mogta hooyadii baa joogta guriga waxay ku leedahay maanta gabadha hayga xidhi hooyo wallaahi ayadoon baa badbaadsan karta moogi aniga kolley xaaskaygan u danin lahaa waxaad lihi lahayd hool ka badan haysaa sooma waa xagaag mid